hear you. I don't know from that end. هذا Sabda هذا ها. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن سلام الأمانتين maantay waxaan ka hadlaynaa qaybta aan ka hadli doono waxay tahay patient rights and confidentiality, taas oo aan kaga hadli doono waxyaabaha dhakhaatiirta iyo medical fieldgana nooga aadan insha allah. marka aan ka hadlayno ethicska biomedical ethics ama waxaa loo yaqaanaa clinical or medical ethics maxay tahay waxyaabaha muhiimka oo nalaga rabo in aan ogaano as a doctors. Pointskan ayaa nagu muhiimsan oo ay tahay inaan ogaano. Marka koowaad ethicska sababta loo soo dejiyo waxay tahay to appreciate the ethical dimensions of patient care oo dhakhtarka looga baahan yahay in uu ogaado waxyaabaha kala duwan. sidoo kaleeto principleska oo laga rabo dhakhtarka oo inuu fahmo marka laga hadlayo medical professionka, and sidoo kaleeto in uu competent u yahay ama uu yaqaano core of ethical behavior skillska laga rabo, like obtain informed consent iyo kaleeto decision makingka, discussion stations and so on. sidoo kaleeto in uu yaqaano waxyaabaha ethical issueska oo commonly ethical issueska uu la kulmi karo dhakhtarka waqtiga uu shaqada ku jiro, in uu ayadana competent u yahay in uu xalin karo ama analyze garan karo ethical problemska iyo cultural diversityga marka laga hadlayo ethicska uu saameynta cultural diversityga saameynta ku leh ethicska ayadana inuu ogaan karo dhakhtarku. marka laga hadlayo marka ethics waxaa jiro waxa la yiraahdo principles of ethics oo ay tahay ruleska loogu talagalay dhakhtar kasta in uu raaco oona saameyn ku yeelan doonto si loo helo patient lagu badbaadin karo bukaankii iyo patientkiina ay ku kala nabad bukaankii dhakhtarkiina ay ku kala nabadgeli karaan iyo bulshadii intaba. maxaa ka mid ah marka beneficence mid ayaan u hoostagi doonaa. beneficence, non-maleficence, autonomy, justice. meelaha qaar 4 ay isticmaalaan ruleska ama wadamada qaarna waxay ku daraan informed consent oo ah 5 principles of ethics. so 5ka ayaan soo qaadan doonaa insha allah. ruleka noogu horeeya waa maxay? beneficence. beneficence marka muxuu yahay? waxaa loo baahan yahay dhakhtarku in uu ka shaqeeyo ama physicianku in uu ka shaqeeyo waxa bukaanka danta ugu jirto. bukaanka danta waxa ugu jirto marka aan leenahay maxaa ka mid ah wax bukaanka aanan dhib ku ahayn, dhib u keenin financially iyo intiisi iyo hadhow mustaqbalkiisana aan dhibaato kale u keenin. for examples maxaa ka mid ah investigations marka uu dhakhtarka uu sameynayo kaleeto oo inay bukaanka wax benefit u ah dhakhtarku wuxuu qaadaa history iyo physical examination kahor intuusan investigation sameynin si uu go-aan ugu gaari karo investigationska bukaanada ay u baahan yihiin. kadib markaas maxaa laga caawinaa investigationskan right investigations ma yihiin bukaanka amay dhib u keenayaan meeshii loogu baahnaay ayaga amay riski yihiin waxyaabahaas ayna fiirin. maalmahan dambe xooga waxaa nagu soo badanaya examples ayaan soo qaadan doonaa iyo topic in bukaanadii unnecessary investigations loo sameeyo. for example waxaa laga yaabaa inuu ilmihi qandho iyo calool xanuun la yimaaday abdominal pain and then investigations CT lagu daro. sometimes unless it's indicated oo aan loo baahnayn CT-ga riski ayuu leeyahay, financiallyna riski ayuu yahay, caafimaad ahaanna riskigiisu u badan yahay. marka bukaankii benefit haddiisan ugu jirin in aan loo sameynin ayaa muhiim ah. sidoo kaleeto injections kala isticmaalo daawada saxda ahayd ma tahay, meeshii saxda ahayd ma laga isticmaalay, xanuunkii loogu talagalay ma daaweynay, ayadana muhiim waa inuu dhakhtarka og yahay bukaankan dan ugu jirta inay tahay in la fiiriyo before aan la isticmaalin.
confidentiality sidoo kaleeto one topic oo waxaan noogu jiri doona confidentiality-ga operationska ama qaliimada la sameynayo in la fiiriyo horta bukaanka qaliinkan u baahan yahay haddii uu u baahan yahay in qaliinkii loo sameeyo degdeg uu u baahan yahay qaliinkii ma life savina dib maa loo dhigi karaa noocu u baahan yahay yani haddii uusan qaliinka u baahnayn inaan la qalin haddii uu qaliin degdeg u baahan yahay inaan dib loo dhigin labada midkood in laga shaqeeyo chargeska ama financially marka la fiirinayo in la hubiyo in bukaankii waxaan aysan financially dib kasoo gaaraynin daawadiina waa la rabaa in la daaweeyo bukaankii financially inuu culeyskii laga yaray waa la rabaa marka maxaa financially avoidable ah bukaankana lagu badbaadin karaa ayadana muhiim waa sidoo kale prescriptions kala sameynayo ama daawooyinka la qoraayo ayadana bukaanka daawada faa'iidada ugu leh in laga qaato oo la fiiriyo يعني moral كم هو هاي مرك beneficence مرك الفيلم هي تهاي in la protect كرايو مكان هذا rights كذا sidoo kaleeto in laga hortago haddii uu harm ama dhib kusoo socdo iyo any conditions oo dhib u keeni kara sidoo kaleeto in la caawiyo bukaanada caawinta u baahan ay bukaanka disability qabo kaleeto bukaanada dangerka ku jira ama halis ku jira in resuscitation immediately ah loo sameyn karo all these maxay noo soo hoosgalayaan fundamentalka oo benefictions marka aan ka hadlayno I hope you class the other muxuu noo yahay wali maqaa ها سبعا okay the other one muxuu noo yahay non maleficence non maleficence-ga maxaa loo isticmaalaa isagana quote loo isticmaalaa jirto oo la yiraahdo fast do no harm يعني انت aadan wax kala sameynin ba bukaanka asaga dhib ha u geysanin adiga ha kaa badbaado macnaha haddii aadan caawinaynin bukaankii maxay tahay marka oo maxaa soo hoosgalaya bukaankii waxaad u sameynaysid inaysan noqon wax dilaayo so do not kill do not cause pain or suffering okay sidoo kaleeto do not cause offense and so on maxaana laga rabaa marka markii aan meeshan joogno in marka laga hadlayo physicianska in ay sameeyaan xanuunada ama investigationska ama daawooyinka ama waxa ay sameynayaan in aysan ahayn wax aan bukaanka benefit u ahayn laakiin yani ay noqoto benefits against burden of all interventions any interventions aa sameynaysid any treatment aa sameynaysid inay noqoto mid aadan adiga dhib bukaanka uu gaarsiinaynin markaan caawinta waa liskala soo gudbay bukaanka ha dhibaateyn ayaan joognaa maxaa marka muhiim ah oo laga rabaa in go abstain from harming patient inaad ka fogaatid inaad bukaanka dhibaato u geysatid haddii aad ogtahay inaad bukaankan dhibaato u geysanaysid in aadan daaweynin totally waa run in aad ka qeyb qaadatid sidii looga bukaankan uu u heli lahay general health and welfare waxaa kaloo muhiima avoid untried unproven health practices maxaa isleeyahay challengegan anaka aad ayuu noogu badan yahay maxaa soo hoosgelaya in aadan isticmaalin yani waxyaaba aan guidelineskeena ku jirin tusaale in aad ku ekaatid guideline aad leedahay guideline isticmaalaysid ama protocol aad isticmaalaysid laakiin in aadan adiga maskaxdaada kasoo elifanin protocol ee aadan bukaan kasta ku daaweynin يعني each disease هذه أو حتى Somali أولين أدونك protocols هذه so إن راعي protocols داوين أنا هورا لوجو تجاربنا بكانة ده يستن استعمال أما قليلا أنا لوجين مركي هوريتو إن هذا بكانك هذا تجاربين أيضا non maleficence ده يسوس جلسة know your limit know your limit محن كقاعدة كنا تصالة إن هذه الشغل كل ما نكون كرت بكان كاستمر داوين كرت for example hadda aniga inta cunug yariisoo lugta ka jabal ii keeno aan dhaho waan daaweyna waan kabaa beenkii la rasiina ma ahan shaqadeydii soo ma so waa inaan limitkeyga aqaanaa oo inaan raadiyaa dhakhtar kaleeto qaybtaas iiga fiican aan bukaanka u diri karo haddii ay still pediatric yihiin consultation u baahaya inaad consultation samayn kartid oo aada colleague aad la tashan kartid laakiin inaad dhahdid wax kasta waa daaweynaya bukaanka dan uguma jirto do not abandon your patients
do not abandon marka leeyahay for example bukaankaaga haddii uu inpatient ku yahay ama aad operation u samaysay post operative kaaga baahan yahay care inaad u samaysid in aad post operative care-kii uu lahay aad u samaysid oo visitkii aad fiirisid bukaanka according to which means regularly inaad bukaankii visit u samaysid haddii uusan qalin xataa u baahnayn oo inpatient yahayna iyagana regularly visit inaad u samaysid severity-ga ayagoo ku xiran once a day twice a day depends on level severity-ga bukaanka uu kugu jiro refer whenever indicated yani in aad bukaanka refer garaysid haddii aad u aragtid in aadan meesha joogto wax uga qaban karin ama qeybtaadii uusan ahayn maxaa muhiim ah early referral inaa bukaanka ku samaysid haddaad delay ku samaysid waxay noqonaysaa do not harmkii waa ka baxday oo bukaankii aa isbitaalkii ku haysid ama asagoo aqoon badnaay inaad ku haysatid isbitaalkii kadibna late referral aa u samaysid ayadana ma fiicna so refer whenever indication arise early referral is important the next waxa waaye informed consent jaalantii badanaa laga haysta culturally laakiin waxyaabaha muhiimka ah oo in aan soo qaadanay ay tahay maxaa kamid ah waxaa loo baahan yahay in consent laga saxiixo ama consent verbal ama signed consent la weydiiyo bukaanka before any medical or surgical procedure or haddii bukaankaaga uu samaynaysid adiga yaa muhiim ay tahay ama bointyadee muhiim ah in laga fiiriyo bukaanka aa consentiga ka samaynaysid ama qofka reserveka aa ka qaadaysid consentiga aa ka samaynaysid number one bukaanka inuu yahay competent to understand and decide waxaa u sharxi doontid oo ah yani waxaa u samaynaysid inuu fahmi karo maxaa u sharxay marka luuqad uu fahmi karo inaa ugu sharaxdid procedureka u samaynaysid nooca uu yahay sida aa u samaynaysid maxaa side effect oo procedurekaas soo raaci kara haddii aan la samaynin maxaa dhib ka dhalan kara waxyaabahaas aa u sharxaysid qofkii inuu fahmi karo go-aanna gaari karo that waa muhiim in uu disclosureka yani revise ku samayn karo waxyaabihii aa u sheegtay in uu sidoo kaleeto yani fahmi karo isku xirxiri karo inuu qofku yahay volunteer uu asaga si mutadawaca uu go-aankiis u gaaro ee aadan u qasbaynin iyo in uu saxiixo consentkii actionkii wixii markaa u dhamaysid kadib in consentkii sign ay ahaato the next one wuxuu yahay confidentialityga marka maxaana laga rabaa every physician waxaa waajib ku ah in uusan xogta bukaankiisa la wadaagin qof kaleeto isagoona bukaankiisa uusan u fasixin haddii aad qof kale u gudbinaysid in aad bukaanka fasax weydiisatid challengiga marka meeshan ka iman kara yani culturally waxyaabaha aad noogu adag ay kamid tahay in laba qof saddex qof ama ka badan bukaankii ay la socdaan qof walba uu rabo inuu xogtii helo some of them ayaga ay financially bukaankii caawinayaan marmarka qaar marka dilemma ay noqon kartaa laakiin as much as possible inuu bukaankaaga og yahay in aad la share garaynaysid other parts informationkiisa haddii uu crucial information uu yahayne uusan bukaankaaga ku ogolaanin in aadan la share garaynin informationka qof kaleeto waxaa la dhahaa maadaama hadda electronic mostly la isticmaalo oo documentationkii electronic uu noqday hadda waxaa si adkaado in confidentialitygii la ilaaliyo sometimes dadkii uu departmentyada kale ka shaqeynayo ama other healthcarekii inay arkaan userska haysto inay arkaan laakiin as much as oo documentationka iyo confidentialityga la ilaalin karo bukaanka waajib waaye in la ilaaliyo maxaa kaloo muhiim oo physicianka looga baahan yahay inuu discipline u leeyahay in uusan bukaankiisa xogtiisa la sheerganin family memberkiisa inuusan social gatheringka ku sheegin iyo inuusan social mediaha ayadana kusoo bandhigin doctorka dhinaca social media ka hadlo insha allah confidentialityga marka goormee laga bixi karaa yani goormee la sheegi karaa ayada laftirkeeda waxay ku xiran tahay wadamada iyo culturalka iyo rulka u yaalo laakiin maxaa muhiim ah oo laga wada siman yahay
legally required reporting haddii uu jiro tusaale qof ayaa muddo lagu soo muday ama xabadaa kusoo dhacday ama xanuun kalaa ku dhacay dacwaa furan reportaa laga rabaa taas yani ma ku qasbanid inaa ilaalisid documentationkii markaas waa la wadaagi kartaa booliiskoo kale haddii uu ku yimaado ama maxkamad ay timaado markaas oo kaleeto exceptional situations aa jiro like haddii uu qofkan xanuunkiisa dad kaleeta dhaawacayo tusaale haddii uu qabo xanuun faafa HIV oo kale haddii uu qabo qofka baartimarkiisii in la ogeysiiyana loo baahan yahay pointigan wadamada qaar way ku kala duwan yihiin wadamada qaar waxay qabaan qofka asaga horta u sharax ka dhaadhici ku qanci inuu qofka baartimarkiisa ah u sheego laakiin asagoon kuu ogolaanin ma sheegi kartid haddii uu ku dhaho maya ma sheegi kartid some East African countries taasay qabaan another countries waxay qabaan in aad bukaanka maadaama qof saddexaad ama qof kaleeto uu dhib u keeni kara inaa u sharaxdo sidoo kale maxaa soo hoosgelaya genetic diseasekii oo ilmaha loo kala gudbin lahaa in ayagana baartinarka loo sheego qofka kaleeto kan ugu dambeeya waxa waaye justiceka maxaa waaye in yani loo cadaalad faro bukaankan maxay laga rabaa inay noqoto fair equitable appropriate treatment inaa qofka u sameysa maxaa jira marka fairnesska personal way noqon kartaa generalizedne way noqon kartaa oo governmental level way noqon kartaa so marka aan ka hadlayno marka personally in aadan bukaankaaga oo kuu yimaaday aadan u kala xigsanin ama aadan cadaalad darro ugu sameynin adoo fiirinaysid genderkooda miyaa naag miyaa agekooda ma yar yahay ma weyn yahay inaadan u kala tixgelinin educational standardkooda in aadan fiirinin ethnicitygooda ama meesha ay kasoo jeedaan professionka ay leeyihiin yani qofkan qof waxbarta waaye qof waxbaran waaye professionkayga dhakhtaru leeyahay qofkan dhakhtar ma aha kale inaadan u fiirin friendliness macnaha inaad saaxiibadaada xigsaninee markii ayaga wixii fiicnaa aadan u qabanin oo si fiican ugu hagar bixinin bukaanada kaleetana aadan gacan bidixinin oo si cadaalad ah loogu wada adeego bukaanada regardless religionkooda regardless agekooda regardless professionkooda marka laga hadlayo marka taas waa marka isbitaalka ilaada laakiin marka distributionka laga hadlayo ama wax la qaybinayo governmental maxaa laga rabaa inay noqoto equal shares yani tusaale isbitaal oo kaleeto ama isbitaalo kala duwan oo governmental ah ama daawooyin ama wax la qaybinaya inay noqdaan equal shares wax lagu qaybiyo ayadoo la fiirinayo sidoo kaleeto baahida loo qabo yani isbitaal ama meel internal medicine lagu daaweynayo meel obs angain lagu daaweynayo ama pediatric needska way ku kala duwanaanayaan equipmented iyo waxay u baahan yihiin sidoo kaleeto avoid ama according to the effortiga lagu bixinayo waxaa laga yaabaa meel emergencygeeda badan yahay meeshan inay tahay inpatient meesha kale inay tahay clinic ama outpatient ayadana effortiga ama dadka loo baahan yahay energy lagu bixinayo ayadana according to u fiirinaysa contributionska ayadoo la fiirinayo oo ay ka qayb qaadanayaan iyo sidoo kaleeto market exchangeska jiro ama lacagaha iyo maxaa taas waa generalized marka wax distribution loo sameynayo justice so I think that's it on aad iyo aad aa umahadsantahay Dr. Khatun. Thank you so much. That was well elaborated and well said. Aad iyo aad aad umahadsantahay. Now I call upon Dr. Abdulsaaq Xasan Jimcaale inuu isagana kusoo dhawaado oo la share gareeyo screenkiisa qaybta labaad ee presentationka su'aalaha iyo commentiska waa markaan presentationka dhamayna kadib insha Allah haddii ilaahay idmo haddii aad su'aal qabtid comment qabtid please drop it in the chat box kusoo qor insha Allah haddii ilaahay chat boxka waa laga jawaabaa waa laga discuss gareeyo insha Allah haddii ilaahay Dr. Abdulsaaq floor is yours adaa iskale shaashada adaa iskale kusoo dhawaaq Dr. Abdulsaaq Xasan. Yeah, well, just here is how I trying to Okay.
I think Dr. Abdulrazak has a challenge here or start soon inshallah دي لاين. Can you see the slides? We can't see your slides. We can just see, I think, your The first You page. explore. I think I can see your screen and it's written search the web. I can't see any PowerPoint presentation or any PDF, any kind of presentation. You But I can can see. just see I can see your screen, but I can't see any presentation on your screen. Oh, okay, just a second. And it's I think zoomed out. Huh? Could you reduce your? It's zoomed out. I think just reduce your zoom, your zooming. Yeah, now I can see your screen. This putting on slides. Is it okay now? Yeah, it's okay. It's visible. Visible. It's visible. Yeah. No, Okay. over to you. Sorry. Okay, so you can go ahead. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري يقرأ لهذا دمان خاطرته كجرته مارتي مادشة يقرأ لهذا you know anaga waxaan nahay dinosaurs dadkii odayaashii hore maartay marka technology we have problem with the technology so waxaan I have to call my kids yararkii ayaa naga badiyo waxaan okay السلام عليكم ودعوة السلام يا دمانتين I can see many doctors are there almost 58 now aniga waxaan ka hadlayaa is the first slide is clear Very clear. Very clear. Very clear. I'm Very going clear. to talk about the ethics of social media use for healthcare providers. Marka ugu horeyso, I have to start with this disclosure and is caddeeyo. I have no maartay wax fund wax aan gooni ah oon kasoo qaatay maartay dad ama company si aan lecture-kan u sameeyo ma jirto ama I'm not also representing maartay meesha aan ka shaqeeyo maartay department-ga aan ka shaqeeyo also wax ka socda maaha first of all. The next background-kan yar ayaan rabaa inaan idinla share gareeyo. Is the all visible me? I'm the whole picture. Yeah, it's very visible. I can see it from here. It's Okay. visible. Okay. Background yar ayaan rabaa inaan ka sheekeeyo markii social media-ha uu soo caan baxay waxyaala dhacay ayaan rabaa inaan marka hore inaan ka sheego. 2008 Swedish nurse was suspended from her job after posting on her Facebook profile picture of a brain surgery she was in which she was participating. Gabadhaas nurseska ah because of this picture qaliinka ay ku jirta daraaddeed ayaa shaqada looga ceeriyay. 2012 US Johnson County Community College ayadana sidoo kale nurse assistant ayaa oo Facebook soo dhigay pictures of ayagoo maarata hayo oo gudbinaya maarata human placenta daraaddeed ayaa ayagana shaqada looga ceeriyay. And similar scenario Mexican anesthesiologist dhakhtar anesthesist ah oo Mexican ah ayaa asigana sidoo kale shaqada laga ceeriyay in 2012 and for publishing and waxay ku publish garaysay Facebook account-keeda pictures of depicted a child being immobilized prior to an operation and amputated legs of an elderly woman and various surgery pictures
where the patient's faces were visible aydan waxyaalahaas ay soo dhigtay social media bukaano fara badan oo wejiyadooda clear ay tahay daraadeed ayaa ayadana shaqada looga ceershay dhakhtaradaas anesthesistaha no informed consent ma jirin waxaan ay sameeyeen markii ay soo dhigayeen picturadan maaragtay facebooka iyo social mediahood waxaa kaloo kasii darnaa dadkan waxay sameeyeen when they put a picture haddana waa loo badan yahay adinka haddaad aragteen waa aragteen dhakhaatiirta qaarkood way sameeyaan pictureka hoostiisa waxay ku qorayaan this caption oo ah we are having feet for breakfast for example the other one added we do better job than hitman waxaa la dadka oo lacagta lagu siiyo ragga lacagta lagu siiyo inay soo dilaan ama gangiska marka picturekii oo ayagoo shaqaynayo ay soo sawiraan ayaa haddana hoostiisa waxay ku qorayaan kelmadahaas oo kale oo kasii daraya maaragtay dadkii wejiyadooda ay waadax ahaayeen maaragtay xanaaq ziyaada kusii dhalin kara marka saas daraadeed ayaa shaqada looga ceyriyey another recently aniga meesha aan joogo hadda waddankan imaaraadka health institution waxaa xasuustaa dhakhtar ma ahayn one of the health providers and he is a YouTuber also being a health provider asoo ah ayuu haddana YouTuber uu yahay marka YouTube wuxuu wax gelgeliyaa muxuu sameeyey one of his YouTube-kiisa wuxuu labisnaa uniformka institutionka uu shaqeynayo oo ay ku caddahay institutionka magaciisa shaatiga uu wato shaqada ayaa laga ceeriyay hadda dhoweed waa less than 1 year because of maaragtay institutionkaas magaciisa ku cayaaraya mafahmino lan institutionada waxay leeyihin reputation leeyihin asiga wuxuu ka hadlaya caafimaadka ma hadlayn wax kaleeto ka hadlaya laakiin wuu ishilmaamay shaqadu ka soo baxay hore wuxuu ka bilaabay sheekadiisii YouTube-kii marka asoo dharkii wata ayuu YouTube duubay YouTube-kii de of course social media meel walba uu tegaya meeshuu ka shaqeynaya aragtay shaqada laga ceeriyay jobless way marka it's a very sensitive issue why social media la dhigayo maaragtay maxaa lihi jiray pictureska of patients without maaragtay patients permission marka social media muxuu yahay what is a social media waa in interactive online apps or softwares that allow people to create and share information from ideas job market details or other forms of expressions via online communication and networks marka waa naqaan social media waa fara badan yahay these are examples of the social media and for example blogs and TikTok and Instagram waxyaalo fara badan ayaa laga isticmaalaa social media I don't know what is this qadkan oo midin fadlan qofka wax ku qoraya waa boardka naga joojiyo qofka screen wax qoraya naga joojiyo fadlan inka raalli okay okay marka social media waa double edged weapon waay waa midi laba af leh waay haddaad u isticmaashid sida wanaagsan ayuu wax wanaagsan ayaad ka helaysaa haddaad u isticmaashid si xunne maaragtay si xun buu meel xun buu ku dhammaanayaa maaragtay waxaad samaynaysid marka fadlan qaliinka dadka wax qoraya haga dhaafaan fadlan I can see here marka what is the advantageska oo healthcare providerska ama healthcare institutionka oo ka helayo social media haddii sidii saxda ah loo isticmaalo maxay tahay advantageska waxa weeyaan first it aids creation of digital information such as medical reports appointment scheduling when it is shared digital platform via social media waxaa kaloo muhiim ah oo macnaha annaawi waxa ogtihiin in all our medical report mostly it's digital marka social media institution wuxuu u fududeynaya inay ay ku habeystaan appointmentiga si ay u schedule gareyn lahaayeen iyo waxyaalahaas oo dhan the second waxa waaye peer to peer healthcare professional collaborations dhakhaatiirta inay wax isdhaafsadaan neerska inay wax isdhaafsadaan cilmiga inay isdhaafsadaan maarata waxyaalaha up to date caafimaadka khuseeya sida anaga hadda waxyaalaha isu dhaafsanayno kale it's very good maarata way waaye oo loo isticmaali karo maarata healthcare dhexdooda inay healthcare professionalka inay cilmiga isdhaafsadaan third waxa waaye community health promotion ayaa loo isticmaalaa waxaa jira website fara badan oo maaragtay matalan ay jiraan maaragtay community waxaa arkaysaa cudurrada qaarkood oo qofka markuu la diyaanij garay matalan Alzheimer disease community maqlaysaa maxaa la dhihi jiray diabetic qofkii waxaa waaye marka cudurka lagu sheego waxaa leedahay just go to this website wuxuu helayaa other people who are having same problem cudurkiisa kala qabo
ayuu meesha ku arkayaa ayaga marka waxay u noqonayaan support u sheegaya sida cudurku ugu dhacay ilaa hadda waxay isticmaalaan waxyaalaha laga rabo qofkii marka wuxuu noqonaya xataa mentally supported because he is surrounded by group of people or similar problem qabaan marka waxaa kaloo loo isticmaala community health promotion waxaa kaloo kamid ah in dhakhaatiirta ama healthcare providerskii ay maaragtay cuduradii waddanka ku badnaayo kale ay ka sheekeeyaan ay dadkii baraan wuxuu yahay mathalan hypertension diabetes cudurkaas in wixii oo up to date ah evidence based in la gaarsiiyo maaragtay the community and how you will say ku gaarsiinaysaa through maaragtay social media marka advantagekas weyn uu leeyahay the other one oo loo hadda la isticmaalo idan sidoo kale waxaa waa clinical trials oo kale iyo monitoring for clinical trials social media waa la isticmaala even though it's very dangerous ay tahay oo risky ay tahay maaragtay waxaa jira wax la yiraahdo clinical photography ama kan waxaa soo hoosgalaya مثلا video qaado kale ama sawir qaado ama recording waxaasoo dhan ayaa soo hoosgalaya marka goormaa la isticmaalaa isbitaalaadka qaarkood waxay leeyihiin clinical photographer specialist oo asiga ayaa qaada footada oo sawirka qaadaya asiga record gareynaya wixii loo baahan yahay waxaa loo isticmaalaa health institution waxaa loo isticmaalaa si lagu ogaado state bukaankaas treatmentigiisii marka la siinayo progression hadduu dhaca conditionkiisa haddii wax isbedeleen marka waxaa la sameeyaa pre and during and post sawiro laga qaadaya jiro marka not every specialty ma isticmaalaan some specialty ayaa isticmaalaan qofku mathalan markuu imaaday siduu ahaa u ekay jirkiisa ama qaybtii marka laga daaweynaya say ahayd daawada markuu qaatay iyo markuu daawada ugu dhammaysto siduu noqday marka it's very important waxa waaye maxaa la dhihi jiray tool waaye clinical photography dermatologistiga isticmaali karaan oncology people plastic surgery pathologist orthopedic not limited to all this mahan حتى specialty fara badan ayaa jira oo isticmaala maaragtay clinical photography so the main objective of this clinical photography waxa waaye treatment decision assessment of medical condition and recording the progression of certain treatment sida aan soo sheegay marka clinical photography laba qayb waaye primary clinical photography iyo secondary clinical photography primary clinical photography waxaa la dhahaa marka loo isticmaalo patient care ayaa sawiradan laga qaado bukaankan iyo videogan laga duubay waxaa loo isticmaalayaa the purpose is patient care secondary laakiin secondary recordingka ama fotooyinka la qaaday waxaa loo isticmaalaa مثلا for medical education مثلا يا مثلا ECG أما MRI أو مثلا specific problem أيا وحال الشير قرينيسا as a medical education أيا هذا وحد الشير قرينيسا دتكي أحبريسي أما دتكي كوليجيس كل شقينا فن research كو خلنا والله استعمالها clinical photography وحكوا الله استعمالها كان medical legal asset medical legal document مثلا child abuse مثلا home violence qofaa wax soo sameeyay ama qofaa lasoo dilay ama ayagana sidoo kale ase document haddii maxkamadda ay dalbato oo kale sawiradaas waa laga qaada ayadana waa loo isticmaalaa marka la qaadayo marka sawiradan la qaadayo oo clinical photography la sameynayo ama video ha ahaado ama photo keliya ha ahaato marka la sameynayo waxaa loo baahan yahay three things marka ugu horeyso waxaa loo isticmaala three things loo isticmaala educating more clinicians allowing promoting research and advising education general population marka waxaa muhiim ah in qofkii laga qaadayo sawirkaas ama videogaas laga qaadayo inuu buuxiyo shuruudda ah informed consent in laga helo qofkaas sida dhakhtarada hadda fartuun ay ka sheekeynaysa informed consent is very very important one marka informed consent criteria three criteria in qofka laga rabo bukaanka the patient is given adequate information regarding the procedure to be performed and he should understand the information marka suurada laga qaadayo oo la qaado waxa loo sheegayo barkooska looga qaadayo iyo sababta looga qaadayo iyo waxaad u sheegaysaa xataa haddii aad social media u isticmaali doonto he should agree in waxaan loo isticmaali doono social media riskiga ay leedahay social media inaad u sheegtid waayo because social media waa fadaa مفتوح وبنان عدلاه anything can happen even though
and some websites some social platforms ay ku leeyihiin waxaa leedahay maaragtay maxaa la jiray settings ayaa sometimes you can choose restriction and samayn kartaa, but this is all of them are not reliable. Sometimes the owner of the platform can access, or the website adiga ka shaqeynayso kale ayaa somebody else can access and hackers ay geli karo. Marka social media waa very risky waa, marka bukaanku waa inaad u sheegtaa all these things, adequate information as sida laga baahan yahay. Second important thing is qofka waxa uu sheegaysa he should be competent person. Yeah, competent inuu yahay waa competent Dr. Fortune way soo sharaxay. waa inuu yahay he must be competent to reason about the possible outcomes and accepting the proposed procedure, and on the basis of such judgment to be able to decide. waa inuu fahm yahay qofka waxaan fahmi kara. marka qofka competent markuu yahay, qofka la dhihi karo competent waa qof fahmi kara waxaan in مثلا wadamada qaarkood below 18 years oo kale waxay ku leeyihiin aabihiisa hooyadiisa ayaa maaragtay ayaa consenting sameynaya. dadka qaarkood maskax madaxa loogu jiro kale they cannot be competent. qof matalan drugs qaadanayo oo sedatives qaadanayo kale oo wacyigiisa uusan joogin, you cannot ask him to sign. qof matalan is in pain, is xanuun xoog lahay, xanuunka tijiyo marka hore, then when he is fine ask him to if he accepts. marka competency very important one. The person should be competent to sign an informed consent. Last, the patient's consent is not forced, manipulated, or improperly influenced by healthcare providers. And isku dayin ayadana sidoo kale qodobka saddexaad waxa waaye markaad qofkii uu ogolaaday waa ka dhaadhicisay he is competent مثلا. The third thing is don't manipulate. sida adiga aad rabtid maaragtay ha ugu sheegin. You have to say all the options in sida laga rabaa. Don't play on the decision of the patient. Hadhihin aniga tan ay la fiicnaan lahayd, مثلا aniga kaas ay la fiican, aniga I will advise you to do this. marka don't influence. bukaanka hadduu competent yahay wixii aad si fiican ugu sharaxday, he should decide. He is supposed to decide. If these three things are satisfied, then waxaan dhihi karnaa this informed consent is valid. laakiin haddii one of this is maaragtay haddii la maaragtay aysan wax ka jiraan, this is going to be invalid consent. marka capacity and competence labada term waa terms that are used interchangeably. Capacity waxaa la dhahaa is a functional term that refers to the mental or cognitive ability to understand the nature and effect of one's act. qofku markuu fahmayo wax uu go'aanku gaarayo waxay yihiin maskaxdiisana ay tamaam tahay, qofkaas waa la dhihi karaa his capacitygiisa waa capacity ule qofkaas. Competence laakiin waa legal term oo la isticmaalo, waa qofka waxaa waaye having sufficient capacity, ability and or authority of the particular patient's consent to specific treatment being offered. marka competency-ga si qofkaas aa u dhahday competence waaye, and he should maintain and communicate and you have to communicate choice-ka aa u sheegtid, understand inuu qofkii inuu helo information saxa inaad siisid, situation-ka inuu analyze garayn karo, qofkii inuu macnaha kala garan karo waxa umuurta waxay tahay, sheekada waxay tahay, qalliin miya, waxaan miya, sawirka la qaadaa wuxuu yahay, social media maa la dhigi doonaa, consequences-ka imaanay inuu og yahay. Alright, and information-ka inuu macnaha analyze garayn karo. So he has to be understanding, appreciation, reasonable and expression case of choice-ka inuu asiga leeyahay oo go'aanka asiga gaari karo oo aan maaragtay manipulation lagu sameyn go'aankiisa. Alright, marka kaas waxay ahayd just the introduction. What are the ethics nagala rabo social media marka isticmaalayna inaan anaga as a healthcare providers inaan sameyno ethicska nagala baahan maxay tahay? Sida dhakhtarada ay ku bilowday, first do not harm. Make sure that the information you post or you say like is accurate. Okay,
حتى مارتي information عليه like صورة بالتالي thumbs up it should be accurate because social media وسائل النشر وفضاء أو فروم waxaa laga yaabaa qofku yaqaano adiga inaad dhakhtar tahay hadduu arko your time is up qofkaasayto macnaha waxa waaye waa ku kadsoomaya informationkaasayto meesha lasoo dhigo qof kala soo dhigay mathalan information and you said like this marka waxaa laga yaabaa haddii qofkaas problem ku dhaco you are part of this problem marka you have to be always and think waxay dhahaan maxaa la dhihi jiray think always the rules of offline behavior applies to online behavior also macnaha markuu bukaanku hor joogo iyo markuu online yahay ama marka online ka isticmaalaysa iyo marka face to face la isticmaalaysa always remember it's the same there is no difference waxay qaarkood waxay tusaale usoo qaataan waxay dhahaan مثلا waxaad soo gashay lift ya ama mascad maxaa la dhahaa maxaa la dhihi jiray wish aa soo gashay dad fara badanaa meesha fuulo aa kula soo qoray ya hadal aad rabtaa inaad tiraahdid hadalkaasayto si qaylo badan inaad u tiraahdaa rabtaa hadalkaas haddaad la xishoonaysid inaad tiraahdid meesha aad ka tiraahdid the same thing way social media kala xisho inaad saasoo kale aad macnaha either thumb up aad samaysid ama aad like aad tirahdid ama aad waxyaalo kale ku qortid marka social media waa very dangerous so first do not harm is applies also in social media other thing refrain from posting information online that will compromise patients confidentiality and privacy inaad selfie samaysid adiga iyo bukaan kale oo isla joogo oo kale ama qaliim adoo sameynaya kale selfie samaysid ama part of the patient adigoon ka qaadanin consent inaad social media soo dhigto it's not ethicalki waa wrong way and one is online platform haddii aad ku jirtid online be real this is also very important some people they use waxay isticmaalaan magacyo kale ay isticmaalayaan markay social media ku jiraan lama garanayo markaas wuxuu ka hadlayaa arrimo oo dhakhtarnimada shaqo ku leh waa inaa is sheegtid waay be real waa ognahay most of the social media waxyaalaha ka jira dhan dadka magacyo waxay isticmaalaan oo realistic aan ahayn laakiin adiga as healthcare provider markii aad waxyaalaha aan personalka ah gooni waayo laakiin waxyaalaha markaad ka hadlaysid oo caafimaadka ah you have to be realistic real inaad tahay qof real inaad tahay aniga hebel ay dhahay doctor hebel aan ahay because informationka aad meesha dhigaysid waa information oo waxay noqonayaan oo dadka ay ku kadsoomaan ya marka magacaada waa inaad meesha ku qortaa and be professional and respectful the last line is post online materials in relation to your clinical experience that is of benefit of the patient of your patient wixii adiga aad khibrad ku leedahay always markaad social media aad dhigaysa macluumaad caafimaadka speciality aad wax khuseeya dhig wax kale oo adiga aad shaqo ku lahayn haddaad dhigto waxaa laga yaabaa inay qalad aad dhigtid oo maaragtay wax si kaa noqdaan wax qaldan aad dhigtid maaragtay critics badan ay meesha ka imaato continuous and always prioritize the promotion and advancements of the health rather than medical products marka aad social media ku jirtid waxaa focus weyn aa saartaa patients care don't talk about macnaha inaad medication aad advertisements u samaysid ama waxyaalo kaleeto equipment مثلا kana kaas ka fiican kan mainly inaad patient care aad focus kaada saartid the other thing is value the patient's dignity and privacy by not taking selfies and hore usoo sheekan I don't want to repeat it again and this is also very important do not offer direct clinical advice to a patient on social media platform but to direct person to where they can seek help مثلا you were on the social media bukaana wuxuu yiri aniga caloosha liiga haya kana xanuunaya kaas ay xanuunaya never give any advice on through the social media qofkaas waxaad tiraahdaa aniga adiga dhakhtar u tag isbitaal hebel tag kaas tag inaad tiraahda ayaa wanaagsan because waxaa laga yaabaa something catastrophic inuu qabo advice-kaagii xataa waxaa laga yaabaa inay isla markii la record gareeyo oo la publish gareeyo la yirahdo oh doctor hebel wuxuu maanta yiri saas cudurkaas saas lagu daaweeyaa is very dangerous social media iska ilaaliya inaa hadalla eeda kasoo fakanin especially individualized مثلا care plan oo kale markaad tid مثلا waxaa laga yaabaa wax
bukaanada qaarkood ayagoo same disease qabaan waxaa laga yaabaa waxaa jira waxa la dhaho individualized care bukaan wax asiga goonidiisa ama u fiican ku kale u fiicneena laga yaabaa marka on social media adoo intaad bukaan directly aad communication ku samaysid meel ummadii oo dhan ay wada joogto haddaad tiraahdid this is the best way to do and this is the best medication to take and this and that waxaa laga yaabaa this individualized care kan adiga aad tiri maadaama waxaa laga yaabaa dad qaarkood capture inay inta sameeyaan ay sheergareeyaan meelo badan u diraan hadhow aad tiraahdo war aniga kaas kama wadayna qofkaas keliya ayaan aan maaragtay u naseexeynaya aniga ummadoo dhan waxaasaan laguma daaweeyo yeah marka be careful don't give any advice when you are on social media bukaanka laakiin waxaa tirahdaa meeshaasi meesha kuga tali lahaa inaa aadid privacy setting iska jira waxa la yirahda privacy setting oo lagu kalsoonaan karo ma jiraan maxaa la dhihi jiray almost all social media platforms yeah and it's not guaranteed waxaa laga yaabaa the owner of the platform inuu furo ama si uun wax noqdaan oo privacy settingka u aragtin sometimes I see on the social media some people dhalinyaro yaryar oo hadallada kala gogoynaya isku soo kakabaya yeah and marka anything can happen marka inaad aad isaga ilaalisid marka aad social media aad hadal dhigaysid oo kale ama aad medical advice gelinaysid haddaad aragtid marka when you see content posted by a colleague that appear unprofessional you have a responsibility to bring that content to the attention of the individual so that he or she can remove and take other appropriate action. مثلا while you were on the social media you saw waxa aragtay dhakhtar one of your colleagues ayaa wuxuu soo geliyay information health related information laakiin aan accurate ahayn dadka qaarkood waxa arkaysaa they are very fast waxyaalo waxa waaye facial negative facial expression ay meesha kusoo dhejinayaan ya saas ama saas dhahayaan thumbs down ama indhihii maartay all the waxyaalaha qaarkood oo macnaha tusinaya maartay inaad macnaha raalli ka ahayn it's not good waxyaalahaas inaad u isticmaasho social media ma fiicno try to communicate that person inaad tartiib ula hadashid ama wax u dirta tirada niyo informationka ama soo dhigtay information laga roon yahay waa ilama saxsana wixii saxda ahayna u dirtid marka this is the best way you have to be maartay polite to your colleague it's not good inaad isla markiiba sida maartay dadka maartay non professionals u dhaqmayaan oo u dhaqantid maartay yeah and negative facial expression kan meesha aad soo dhigtid because waxa social media dhakhtarkaas uu soo dhigay ummad fara badan aad fiirsanayso adiga markay ku arkaan magacaadi oo saan dhahay ama saan dhahay dhakhtarkaasi macnaha waxa way question mark saarmayso ya waxa leeyahay doctor hebel abaka nijida sida uu reaction ku bixiyay yeah so it's not good marka to treat your colleague like that you should the other thing is you should disclose any conflict of interest with any service or product that you review or discuss online always sida hadda aniga aan ku bilaabo kale marka aad wax aad soo dhigaysid social media you have to waa inaad iscadaysid waadi yeah disclosure waxa la iscadayn ama maxaa la dhihi jiray inaad macnaha aad sheegtaada sababta ama hadday wax jiraan idinka dhexeeya adiga iyo waxaan meesha aad soo dhigayso kale haddee ay jiraan some kind of interest hadday jiraan iyo haddaysan jirin inaad sheegtid meesha ku caddaysaa lagaga baahan ya inaad caddaysid macnaha aad ayaa lagaga baahan disclosure very important one so to conclude there is a great power in the social media conversation yeah social media waa very powerful way waxyaalo fara badan ayaa healthcare providers ay kaga faa'iideysan karaan laakiin a lot of risks ayuu leeyahay marka you have to behave accordingly with this risks faraha badan oo meesha ka jiro you can see this picture this poor guy wuxuu umaleeyaa inuu communication la sameynayo gabar aad u qurxoon laakiin in reality a man is sitting there
marka I think this is happening every time wax oo real ah oo social media ka dhaco marka private settings iyo waxyaalahaas don't rely on it halkaas aniga kusoo joojin lahaa aada u mahadsantihiin for your sida u dhegeysateen aada u mahadsantihiin wixii su-aalna diyaar ah insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عبد الرزاق حسن جمعالة هذه أضافة سنتهاي those that was well elaborated well said and well detailed and إن شاء الله هذه أضافة سنتهاي واحد بدن أو ناقل صونا واحد بدن أو نقدح جحيبه ومحسوسي inta aanan su-aalaha iyo u gelin discussionka waxaana la jooga oo forumka ku jira xasan cali cabdi oo ah head of quality assurance and patient safety federal ministry of health wuxuu codsaday kelmad yar inuu nala wadaago iyo comment yar maadaama isagu joogo policy making ama wasaaradda uu joogo xasan cali cabdi haddii aad maqlaysid please be brief waqtigu aada noogu yar iyo su-aalo badan oo noo yaala kusoo dhawaa waad mahadsan tahay halo xasan okay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بهوينتا عافمادكا ee halkan ku jirto waan salaamay salaan kadib waxaan aad ugu mahadcelinayaa tiimka Dr. Cabdisaaq Dr. Faaduma iyo tiimka runtii si fiican sida aadka u quruxda badan sharaxaad u sameeyay runtii topic aad aniga markaan waan arkay social media waxyaabo fiican uu leeyahay waa sax waaye laftiisa social media ka arkay marka it is very interesting topic markii loo fiiriyo shaqada annaga hadda wasaaradda ka hayno marka insha Allah taala waxaan waa balaarin doonaa inaan balaarinaan jecelnahay doodahan aad looga faa'iideysto dadka runtii in la wacyi geliyo oo mataqaanaa wax badan loo sheego intay shaqada ku jiraan waa muhiim marka qaar qofkii asagiyo cilmiga leh ayaa hilmaan ku dhacaya oo wax badan uu iloobayaa markii laga hadlaayo privacy and confidentiality it's about quality and safety oo runtii udub dhaxaad markii laga hadlaa waxaa laga hadlaa waxaa looga hadlaa waxa la yiraahdo patient centered care oo ah in udub dhaxaad laga dhigo bukaanka uu muhiim u ka noqdo adeegga loo sameynayo uusan noqon mataqaanaa adeeg asaga ka baxsan yahay marka confidentiality oo ah xogta qofka in la ilaaliyo hadday noqon lahayd gudaha xarunta caafimaadka iyo hadday noqon lahayd dibadda labadaba waxaa jiri karaa hadda inkastoo la aaday electronic information system sida dhakhtaradda ay sheegtay oo xogaha laisku dhaafsanaayo maxaa la yirahdaa wax electroniga ayadana laftirkeed yaa xaq u leh inuu mataqaanaa bukaanka uu xogtiisa uu sheego yaana xaq u lahayn meelaha qaar qof walba in loo furo oo uu arki karo ayada laftirkeed in laga taxadiro muhiim waaye marmarka qaar way dhacdaa sida dooreysada ay sheegtay in xogta exceptional case ay jirto oo tusaale haddii qofkan la rabo in discussion laga sameeyo xaaladiisa caafimaad oo health professionalska la rabo in la wadaago oo laga doodo maxaa xaaladiisa laga qaban karaa taas waa iyo haddii uu cudurro faaf ay jiraan oo kale waxyaabo adiga la dhowr waxyaabooda jiro oo qofka xogtiisa qof kale la wadaagi karo ayada laftirkeeda waxaa didan dad kale la wadaagi karo sidoo kale social mediana hadda aalad sida doorka uu sheegay waa aalad khatara oo hadda in badan oo health professionals naga mida ay ku kadsoomaan oo xoogo badan ay soo gudbiyaan iyadoo laga yaabo qofka xataa inuu jirto financial issue inay haysto oo la yiraahdo financial issue looga faa'iideysto ayada laftirkeed point muhiim u ah halkaas marka aad iyo aad aan kaga mahadcelinaa mar labaad mar saddexaad barasho wanaagsan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan toobigada la xiriirto oo patientiga inaan patient safety iyo quality ku saabsan laftirkeed inaan waddanka in aad loogu baraarugsaneen ayaan dareemaynaa in aan ballaarino oo hadduu ilaa yiraahdo intaan inka badan aan sameyno insha allahu tacaala waa mahadsantiin barasho wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا mahadsan tahay haddana waxaan u guda gelaynaa su'aalaha iyo commentska ka imaaday chat boxka intaanan u gelin hadaayo Dr. Cabdisaaq markuu sharaxayo wuxuu ka hadlo ahayd
hadalka aad qof u sheegaysid haddii aad ka dhexso qofka hadalka u sheegay qof kale inuu maqlo inta iska ilaalisa waxaan umaleynaya xadiidka jira nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam idaa xadatha arajulu bixadiidin thuma iltafata fahiya amaana haddii qofku ta sheeko ka sheekeeyo sheekadaas uu midig iyo bidix fiiriyo sheekadaas waxaa ku jirta ammaano inuu qariyo laanna wuxuu sheegaa sir marka sirta in la qariyana islaamka meel adag ka joogta aad iyo aad u mahadsantiin haddana waxaan u gudagalaynaa su-aalaha chatboxka ilaa hadda su-aalaha waxaan ku bilaabi doonaa su-aal waxaan doctor cabdirasaaq sheekh doonaya wuxuu weydiinaya su-aal what if the reason of posting the case or pictures to attract more patients or business wise? Another question is he's asking, can a doctor advertise him or herself in any way? And what are the legal and ethical and professional implications about that? In simply, haddii maxaan walayn haddaan soo koobo dhakhtarku ama isbitaalku ma isku xayeysiin karaa inuu bostigareeyo ama social media bukaano soo dhigo maxayna tahay medical legally waxa ka dhalan kara iyo waxyaalaha ka imaan kara isla su-aal kale taas la socota wuxuu think sidoo kale wuxuu weydiinaa waa isla think was the same question dhakhtarku naft ma xayeysiin karaa social media waxyaalaha qabta soo bukaano iyo soo bandhigaya shaqadii uu qabtay waxaan umaleynaa su-aashaas waxay aadaysaa doctor cabdirasaaq xasan jimcaale more waxay la xiriirtaa qaybtii dambe oo presentationkiisa su-aaluhuna chatbox ay ku jiraan doctor cabdirasaaq welcome okay waa ujeedaa chatbox qaar arkaya marka waa ka hadalnay midaan ah in aan lasoo dhigi karin bukaanka social media siba adigoon bukaankaasi maaragtay u sharxin waxa aad samaynaysid iyo informed consent ka haysanin inaad social media khaasatan aad soo dhigtid wejigiisa qofka macnaha meelo laga garan karo si fiican ina ugu sharaxdid ayaa loo baahan yahay laakiin maaha in qof walba intuu iskala soo istaago meesha oo maaragtay advertisement ayaan ku samaynayaa maxaa la dhihi jiray dhakhtarkaasi oo asiga advertisement u sameeyo inuu bukaan aan waxba ka warqabin inuu meesha soo dhigo oo beritana bukaankii haddana maalin kale social media inta soo istaago uu yiraahdo maaragtay dhakhtarkan aniga waxaas aniga inuu iga sawiro isku maynan ogeyn marka waa is unethics waaye marka authority-ga ay khusayso inay wax ka qabtaan waaye kolley ma aqaan keena sida wax looga qaban karo laakiin waddamadan waxaasoo kale lagama samayn karo shaaki oo calaamadii ay ku qoran tahay qof shaqada dhan looga ceeriyey fama baal qof dhan oo intaas bukaan inta soo qaaday suuradiisa soo dhigay maba ka dhici karto maaragtay isbitaal samayn karana ma jirto dhakhtarka wuxuu isku xayeysiin karaa asiga takhasuska uu haystay waxaas wuu qori karayaa intaasoo kaysan sameeyey cadadka tirada nambarro qori karaa laakiin bukaan inuu isku xayeysiiyo is unacceptable ethicalsna ma aha bukaanka inuu soo sawiro bukaan maaha asagoo ama procedure u sameynaya ama asigoo bukaankii la taagan ama it's unethics waaye xataa haddii aad consent ka qaadatid xataa I think it's not good waa laga fiican yahay maaragtay waxa qabatid dartiisa u qabanaysaa bukaankan waxa u samaysid lacag waa ka qaadatay ilaa dartiisa sidaa u qabatid haddaad lacag ka qaadatin of course wixii waa qaadatay ja exchange aa qaadatay waayo ageyna bukaanka meesha u keenay haddii ilaahay dartiisa u qabatayna wixii sadaqa aa baxsatay waa la qariyaa banaanka lama soo dhigo ya lama sheego macnaha aniga bukaankaas lacag laana waxaan ugu sameeyey bukaankan hadda saana noqday I think wax laga wanaagsan yahay waa it's not ethics maahan xataa diiniyan ma fiicno maaragtay qofka in qof bani aadan oo caawiye inuu sheego qofka aa caawisay ilaah dartiisa u caawisay okay ha sheegin haddii aa lacag ka qaadatin dee lacagtaada waa qaad maxaa u sheegin laba jeero inaad sheegtid maaha haddii aad maaragtay waxa u qabatay muqaabil lacag aad ka qaadatay ajarkaada waa qaadatay that's finished haddii aad ilaah dartiisa ugu qabatayna ajarkaada ilaah agtiisa iska khasaarinin oo aakhirada wax ugu qabsatay inaad iska khasaarisid maaha oo bukaankan banaankaas soo dhigin maaragtay waxa u qabatayna maaragtay disclosure ha ku sameyn xataa waxaa laga yaabaa qofkaas waxaas ku samaysay qadimaadka ku samaysay bulshada dhexdeeda in maaragtay uu ka takoormo ama bulshada farta ugu fiiqo la yiraahdo waa hebel ninkii maaragtay meelahaas la soo dhigaayo waaye marka ma wanaagsan wax wanaagsan maaha
aad iyo aad umasan Dr. Cabdirasaaq. That was well said. waxaad qabatay lahaditaad u qabatay dad wanaagsan waa wanaajisay sadaqadaada iska sheegin haddii kalena muqaabilaad ka qaadatay qofkan miskiinka ah bulshada usubanaagaas waa well said wanaagsan sidoo kaleto isla qof ayaa waxa weydiinaya xasan cabdi geede waxa weydiinaya yani telemedicineka waxa ka weydiinaya dhakhtarku qof ma ku qaabili karaa si online prescription ma ku samayn karaa nowadays waa ognahay telemedicine iyo kaas waxaan Dr. Cabdirasaaq taas wala aydan waddankan imaaraadka telemedicine way jirtaa waa la isticmaalaa laakiin wuxuu leeyahay restrictions uu leeyahay bukaanka video ugu imanaya video callkaas ayaad maaragtay ku qaabilaysaa historyga ka qaadaysaa marka restrictionkiisa waxaa kamid ah waxyaalaha qaarkood matalan physical examination you cannot do it marka bukaanka matalan hadduu kugu yimaado some kind of complaint matalan I have abdominal pain I have earache you need to examine bukaankaas waxaa leedahay okay I'm sorry meeshan platformkan telemedicinekan waxaa loogu talagalay in matalan waxaa loogu talagalay qofki matalan medication refill u imaanaya matalan diabetic waaye mostly dadka halkan loo isticmaalo telemedicineka waa dad sokor qaba ama dhiikar qaba ama chronic disease qaba oo u imaanayo medication refill daawadii ka dhamaatay daawadii uu rabaa in mar labaad loo qoro ama he wants to be referred to another doctor marka wuxuu kuu sheeganayaa problemkiisu kuu sheegan marka problemka markuu kuu sheegto then you tell okay I'll refer you to specialty kaas ama specialty kaas aan kuu diraya marka waxyaalaha acute oo kale ama waxyaalaha u baahan physical examination ma lagu samayn karo telemedicine waa ina aad tiraahdaa face to face adigu u baahan tahay niyahow dhakhtar u tag ha lagu arko because waxaad matalan chest pain ay hayso ku leeyahay chest pain telemedicine you cannot diagnose it you need to examine the patient you need to do ECG you need to do a lot of things all right ama he is telling you I have earache you need to examine his ear marka telemedicine limitation ay leeyihin restriction ay leeyihin haddii waxaa loo isticmaali karaa patient education waa loo isticmaali karaa medication refill waa loo isticmaali karaa waxyaalaha qaarkood oo just needs maaragtay history takingka aad go-aan ku gaari karto kale waa lagu qaadi karaa and restriction intaas waxa aan ahayn bukaankaas waxaa waaye marka horeba appointment looma sameynayo meeshan wuxuu leeyahay call center jiro call centerka wuu weydiinaya bukaanka intaan appointmentiga la siin telemedicine what's your problem buu leeyahay sometimes some of them they hide way iska soo dhexgalahayaan laakiin marka adiga ogaatid problemkiisa waxaa laga rabaa you have to redirect inaad u dirtid meeshii saxda ahayd marka telemedicineka waa very useful laakiin limited maaragtay conditions ayaa loo isticmaali karaa iyo waxaa kaloo telemedicine loo isticmaalaa halkan matalan remote hospitals isbitaalaadka oo remote-ka ah oo meelaha fog ku yaalo kale sometimes matalan dhakhaatiirta tara wuxuu sameynaya ECG chest pain marka he wants to consult with another doctor oo jooga isbitaal weyn ECG-ga they will transmit lankii uu tusaaya ECG uu tusaaya then advice wuxuu ka qaadanaya dhakhtar kale oo specialty ah oo meeshaas joogay this one waa loo isticmaali karaa telemedicine ayadana sidoo kale waxaan umaleynaya in aan ka jawaabay aad iyo aad well said telemedicine waa la isticmaali karaa with limitations laakiin open ma wada aha adoo ilaalinaysa aad umaastaa doctor su-aal kale oo Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Sheekdoon uu kusoo celiyey uu weydiinaya Dr. Fartuun wuxuu ka hadlaa informed consentiga Soomaaliya iyo mushkilada ka jira waa ognahay marar badanna waxaa dhaca in la saxiixi karo qofka bukaanka ah yani marqaatiga ma ka noqon karaa qof dumar ah muxuu ka qabaa qaanuunka Soomaaliya arrintaas kole waa big debate big problem naga haysta consentiga Soomaaliya marka Dr. Fartuun please your comment on that kole waxa malena waad ku dhex jirta waadna ka warqabtaa arrimahaas saan rajeynaa informed consent challenge guud waaye oo general ah wadanka kana ka jiro booliska mostly hadda wax uu sharciyadeena hadda ku degan ma jiro laakiin hadda waxaa la abaabulayaa consentigii sidii loo sameyn lahay hooyada I think markhaati laba dumar ma noqon kartaa hal dumar maxaa loogu diidaa
su-aashiis ku jirta laakiin hooyada nafteeda xataa ma saxiixi karto soomaaliya marka la joogo haddii ayada dhimanaysa xataa waa inuu qof kale u saxiixa so marka waa generalized caqabad oo wadanka dhan haysato soomaaliya keliyaheena u gaar tahay araggaas wadamo badan oo soo camal way jiraan kuwa islaan ahaynna way jiraan oo consentiga isticmaala laakiin hadday wadaa wasaaradda si loo rison karin lahaa informed consent oo hooyooyinka laftirkooda naftooda loo badbaadin lahaa laakiin wax hadda u degan oo shuruudo ah ma jiraan informed consent Okay, thank you. Aad u mahadsan tahay. Waxaan maleynaa waqtigaana haya. Su'aalo badanna way jiraan. Su'aaluna waxay u eg yihiin su'aalo soo laalaabanayo oo legislation iyo policy la xiriira. Intan waxaan maleynaa waxyaalo policy la xiriira loogama jawaabi karo. Hal su'aalo aan inay muhiim tahay oo qof aan magac lahayn oo weydiiyey. Wuxuu weydiinaa haddii qofku uu diido in la daaweeyo ama baaritaan. Okay, well, let me read this. Informed consent is sometimes dhibaatooyinka baaqan wajahay like okay, qofka haddii uu diido life saving procedures waxyaala ah sida resuscitation kaleeto ma waxaa loo baahan informed consent mase waxaa la samayn karaa without informed consent ayaa la samayn karaa su-aashaas oo weydiina kule waxaan rajeynaa doctor cabdirasaaq isagaa arrintaas ku takhasusay emergency medicine jooga doctor ahaya Assalamu alaikum. And regarding the emergency situation, waxa waaye haddii bukaanka oo critical emergency condition uu ku jiro waxaa loo sameynayaa what is best for the patient interest in loo sameeyo waa bukaanka macnaha waxaa laga yaabaa in because of the conditionkan uu hadda ku jiro inuu uusan ahayn competent ahayn uusan macnaha wixii la sameynayo uusan dareemeynin marka he might be in pain waaye ama haddii sometimes confused waaye marka dhakhtarka waxaa loo baahan yahay inuu the doctor has to act on the patient's interest macna bukaankan life saving u baahan yahay lama dhahayo hala sugo waalidkiisa saxiix aabihiisa saxiix ayadiisa ha imaato matan macna qofkaas emergency situationka ku jiro in macnaha waxa adiga aad aqoonaysid waa wax asiga best of interest u ah asiga wax u wanaagsan waa waxa uu sameynaysa marka waxay ku jirtaa meelaha mararka qaarkood aysan important ahayn in uu bukaanka uu sameeyo consent sameeyo waxa la sameeyo marka emergency surgery uu sameyn kartaa life saving procedure waa loo sameyn karaa wadamada gaalada waxay qabaan waxa la do not resuscitate waxa la jiro oo ah qofka intuu noolaa intuusan critical kan gelin ayuu wuxuu sii qoraya warqad uu leeyahay haddii aniga xaaladeeda critical noqoto yaa lii sameynaya in resuscitation marka qofkaasoo kale haddii isbitaalkii la geeyo isbitaalkii oo warqadaas ku qorayna uu tago meelaha qaarkood waxay ku leeyihiin xataa isla isbitaalku ku qoray bis مثلا South Africa oo kale waxay ku leeyihiin isbitaalku qoray bis laakiin isbitaal kale haddii la geeyo do not resuscitate ma jirto waa resuscitation oo loo sameynaya marka wadamadaas anaga wadankeena anaga dhul wadan islaam ku noolnahay waxaas ma jiran xataa wadankan aan ka shaqeeyo there is nothing called do not resuscitate an emergency person wixii u baahnaa waa loo qabanayaa maartay okay aad iyo aad u mahadsan tahay I think waxaan ku imaanay to the okay su-aashan waa qofkaas su-aal dheer soo qoray I think samatar su-aasha waa laga jawaabay markasta waxaa jira qofka guardian ama qofka mas-uulka ah ayaa jira so markasta waa qofkii dhimirka lama caruurta markasta waxa mas-uulka oo saxiixaya qofka guardianka ama qofka ehelkiisa ugu dhow haddii la waayana waxaa saxiixaya isbitaalka markaas loogu sameynayo keerka qof saxiix taas waa ka jawaabna u maleyna hore looga jawaabay okay su-aal kale
قف السؤال أو بجوابها يعني إيه. question أو very general هو لي CPR على برمج جوجينكا أوكي بكان registration وسمينيسا when can you declare that this patient is dead goorma dhihi kartaa dead waa bukaankan oo aad registration ka joojin kartaa waa ethical issue also bukaanka registration markaa u sameynaysid waxyaalo fara badan inaad consider garaysid waa you have to consider a lot of things age very important waaye for example someone who is young don't stop resuscitation immediately you have to give little time waqti dheer xoogaa inaad siisaa loo baahan haddii matalan and it's not like an elderly person who is having a lot of comorbidities qof duq ah oo a lot of comorbidity qabo مثلا end stage problem qabo مثلا end stage renal failure metastasis or cancer iyo waxaas oo qabaan and he collapsed he had cardiac arrest resuscitation u samaysay and you can stop if the patient develops a history مثلا a history ku aragtay markaad resuscitation ka awoodid مثلا 45 minutes ama 30 minutes history bukaankan waa patient having a lot of comorbidities and stage renal failure this and that elderly patient don't continue you can declare that like a young person or collapse don't stop the resuscitation the other important thing waxaa waaye idana oo resuscitationka aad kusii wadi kartid haddii bukaanka uu leeyahay shockable rhythm مثلا ventricular fibrillation ama pulseless beta hadduu leeyahay shockable rhythm don't stop resuscitation you have to continue resuscitation for a while until aad ka helaysid non-shockable rhythmska oo la dhaho asystolia مثلا ama pulseless electrical activity bukaanka oo non-shockable rhythm qabo never stop resuscitation because waa bukaan chance leh inuu soo laabto the other important thing is bukaanada laga soo saaro مثلا way qarqadeen biyay ku qarqeen مثلا bukaanadaasay maarkin oo maartay biyaha ku qarqaday ayana resuscitation waqti dheer u baahan yihiin time far badan ay qaadanayaan because waa soo noqonaya qofkaas inuu soo noqday u badan tahay ilaa biidnillah study fara badan la sameeyay dadka drowningka they need prolonged CPR other factor kale very important waxa waa drug overdose bukaanada مثلا qofka dawooyin fara badan soo laqo kale and he arrested this person also you have to resuscitate very long in bukaankaas inuu soo laabta laga yaabo of course adoo siinayo wixii antidote-kii daawooyinku qaatay antidote-keeda adoo siinayo kale you have to prolong hypothermia wadankeena nabu ka jira asiga dhulalkaas hypothermia ka jirta aydan sidoo kale prolong CPR u baahan qofka bini'aadamka haddii uu cardiac arrest ku dhaco the only one to stop is for example a lot of comorbidities elderly person haddii staffkaada tired ay noqdaan all of them exhausted noqdaan haddii no shockable rhythm soo baxo kuwaas waa iska joojinaysaa you will not exhaust your staff anymore aad iyo aad aa umahadsan tahay dhammaan waxaan ka raaligelinaa su-aalaha weydiisan inaan ka wada jawaabi karin laakiin meelo kalo badan aan ku kulmi doona insha allah haddana waxaan u mahad celinaya kasoo qaybgalayaasha dhammaan qaybahooda kala duwan dhakhaatiirta ardayda kasoo qaybgalayaasha dhammaan aad u mahadsantihiin sidoo kale waxaan si aad ugu mahad celinaa doctor cabdirasaaq sidoo kale waxaan u mahad celinaa ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed iyo ururka dhakhaatiirta caruurta soomaaliyeed oo soo qaban qaabiyey CME-gan ama lecture-kan kaasoo aad iyo aad muhiim u ahaa waxaan kaloo aad ugu mahad celinaa labada presenter oo doctor fortun cabdullaahi xasan qore iyo doctor cabdisaaq xasan jimcaale oo aad iyo aad casharada aad u muhiima meesha ka jeediyey waxaan kulmi doonaa bil walbaba waxaan saqameynaa ugu yaraan hal seminar ururka dhakhaatiirta lafaha soomaaliyeed dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin